waxaynu isku sii macsalaameynaa workshopkeeni oo ka socday gobolkan Awda iyo gobolada dalka oo dhan workshopkaas oo ahaa mid dumarka u khaasa sidii loo dhiirigelin lahaa ama loogu codeyn lahaa inay dumarku soo baxaan golaha deegaanka isla marhaantaana waxaan u mahadnaqayaa dhammaan dumarkii waqtigooda na siiyay ee ka soo qayb galay hawshan iyada ah iyo dhammaan hay'adaha naga fangareeyay oo ay ka mid yihiin Progressio iyo Oxfam iyo gobodka nagaad oo isagu taagan inuu dumarka ku dhiirigeliyo dhammaanba sidii ay uga qayb gali lahaayeen talada dalka iyo sidii ay u ogaan lahaayeen caqabadaha dumarka haysta xagga rightska iyo xagga kaleba waanan dhammaantiinba idin hambalyeynaya sidii ficilada uga qayb qaadateen waxaan xidhaynaa tababarkii noo socday labada cisho ee ku saabsanaa saynu dumarka u soo saareen ama ugu ololeynahay waayo hooyadu waxa weeyaan udub dhaxaadkii bulshada inay dhibtan maanta dhacdanayada ku dhacda maanta dheeftana ciidan kama marka waxaan leeyahay waxaan ku soo gabagabaynaynaa in dumar u soo saar lahayn hadaynu nahay gobolkii Awda saasay isku ognahay wasalaam wad maasantiin iyo maashan aan kala soo qayb galay seminaarkan waxa weeyaan horta sida aad ogtihiinba doorashooyin baa socda Somaliland oo dhan dumarkuna horta waa laf dhabarto raggu ma u footeeyaan marka waxa weey doorkoodii baa galay baan u maleynayaa wax la barbaariyo horta ama bilaadana dadka ugu qiimo badan marka dad si u barbaariyaan hooyooyinku waa la karinayaa markaas ay dalkana u barbaariyaan waxaan jecelahay in maanta iyaga la doorto cidda sharcan habadii soo baxdayna waan ogaanay wax qabadkeedii marka rag iyo dumarku waxaan leeyahay kolka loo footeeyo wixii Soomaaliland ma badnaan maray kulli rag ka badan oo waa kan hebel baaladun lagu badan yahay hebeladu way yartahay marka intaas soo shaqalayaan ma jabine الله فوتيو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا